habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka caawa aan idila wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo afka furtay amrayna in hadda la weeraro ciidamada General Jamcaal Taakar ee xiriyaha ciidan ku leh duleedka magaalada Garowe ee maamulka Puntland haddaba khudbadda la yaabka lahayd ee Saciid Dani uu jeediyay oo sidoo kale uu ku weeraray mas'uuliyiinta federaalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre barnaamijka ayaan rabaa inaan caawa idin kula wadaago sidoo kale waxaa idin la wadaagi doonaa Asad Diyaano oo si la yaab leh kaga hadlay ciidanka dowladda federaalka ay ka qoranayso Puntland una jawaabay Saciid Dani isaga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Ali Yuusuf Cali Xoosh oo iyaguna hadlay barnaamijka ayaan rabaa inaan caawa idin kula wadaago muxuu ahaa dhoolatuskii maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wacdaro ka dhigay magaalada iyo sidoo kale wakiiladii beesha caalamka oo maanta buuxdhaafiyay munaasabadii ka dhaceysay magaalada ee lagu dabaaldegay kooda Luuliyo warbixinadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka caawa idin kula wadaagaya ee soo dhawaada saaxiibayaal aanu ku bilaawno barnaamijkeena caawa isla markaasina ugu horreysayna xaaladda magaalada Garowe ee gobolka Nugaal halkaas oo lagu soo waramayo inay tahay weli mid aad u kacsan iyadoo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ay ka jiraan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo waramayaa inuu amray in la soo afjaray ciidanka General Jamcaal Taakar lana weeraro xiriya ay ku leeyihiin duleedka magaalada Garowe isagoo xal hadlayay sidoo kale waxa uu weerar afka ku qaaday dowladda oo uu sheegay inay ku filaaweysay amniga xamar isla markaasina kooxaha nabadiidka ee duleedka magaalada Muqdisho ay joogaan sidoo kale tana ay dowladdu weerar ku qaadayso maamulka Puntland taasi oo ku sheegay inay dowlad taag daran ay tahay haddaba wuxuu sidoo kale weeraray ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo dhawaan sheegay ama maamul ciqdadaysan ku tilmaamay Puntland waxa uu tilmaamay hadalkaasi uu yahay mid Xasan Sheekh soo dhiibay Xamza uma jawaabayo ee waxaan u jawaabayaa ninka hadalka uu soo dhiibay oo Xasan Sheekh ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani haddaba waxaan rabaa inaan idila wadaago khudbadii la yaabka lahayd ee madaxweyne Dani uu jeediyay maraaxiil kala duwan uu dalka soo maray midnimadiisii baa dhaawaca hay-adihii dowladda Soomaaliyeed baan dhammaystirmin dowladnimadii dhiigga iyo dheecaanka iyo dhaqaalaha badan uu soo galay oo gumaystaha looga xoreeyey dalka Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer naawilayeen ayaa waxaa galay nuqsaan arrintaas waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku baraarugaan dadka reer Puntland waa dad ku suntanaa xorriyaddii halgankii dheeraa ee la soo galay aasaaskii dowladda Soomaaliyeed dhismihii calanka iyo calansaarkii Soomaaliya waa taariikh ku suntan taariikhda Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay wada qirayaan dadka reer Puntland burburkaa kadib waxay waqti badan geliyeen sidii mar labaad loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo sal ah waxaad ogtihiin dowladda federaalka ah ee lagu soo yagleelay imbigaati 2004 oo ah midda maanta oo isku dhiibkiisu uu shaqaynaysay kaalinta iyo doorka ay ku lahaayeen reer Puntland iyo meesha ay maanta soo gaartay Puntland mar walba waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed mar walba waxay u taagan tahay qarannimo Soomaaliyeed mar walba waxay naawilaysaa shacab Soomaaliyeed oo degan oo baraarsan oo horumarsan waxaa nasiib darro ah inaan weli dowladnimada Soomaaliyeed ay la dhutinayso aragti gaabnaan siyaasadeed iyo damac ashkhaaseed iyo kooxeed arrintaas runtii waxay u baahan tahay in si dhug leh loo ogaado waxyaabaha runtii nasiib darrada ah waxa weeye ka soo doogiddii marxaladdaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay u fadhiyeen inay maanta halis ku jirto waxaa la laalay oo lagu tuntay dastuurkii heshiiska lagu ahaa waxaa dhaawac loo geystay nidaamkii federaaliga ahaa waxaa sidii la rabo laga yeelay hay-adihii dowladda waxaa takrifal lagu sameeyey ciidankii dowladda iyo ku dhaqankiisa waxaad arkaysaan ciidamadii qaranka loo diyaariyey
dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba uu waqtiga badan geliyay inuu maanta u shaqeeyo in uu dadka Soomaaliyeed dib u burburiyo waxaa taariikh la ilaaweyn ah wixii ka dhacay 3 iyo 4 bishii shanaad magaalada Muqdisho meel ay ku shirsanayeen beel Soomaaliyeed oo 70 qof ka badan oo ay joogeen ismo deegaankaas ah runtii in gantaalo iyo drone lagu weeraray oo naftooda halis la geliyay waxyaabaha yaabka ah oo ku soo kordhay Soomaaliya waxaa ka mid ah in madaxweynaha waqtigiisii dhamaaday guriga markuu weerarayay waxaa ku jiray ugaaskii murursade waxaa ku jiray ugaaskii mudulood waxaa ku jiray imaamkii muduleed oo labada u dambaysa ah raaskiisa hoose wuxuu ku hogaamiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in halkaa lagu baabi'iyo taariikh cusub oo bilaabatay weeye dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin inay ku baraarugaan waxaa maalmahan aad loo hadal hayaa Puntland baa waxaa laga qorayaa ciidamo federaal ciidamada federaalka ah oo loo laayahay meel xamar 10 kiiloomitir u jirta oo la yiraahdo Basra iyo madaxweynihii hore Cali Mahdi Beer uu leeyahay oo shabaab haystaan oo jowhar iyo xamar aan la isku dhex mari karin oo afgooya aan la aadi karin ninka Puntland oo nabad ah oo cadowgii ka adkaatay oo dalkeeda nabad ka dhigtay dhahaya ciidamaan ka qoraya waa wax iska cad waxa dhibaya horumarka quruxda bilicda Puntland dadka reer Puntland waxaan u ballan qaadaynaa una sheegaynaa iyadoo saraakiishii ciidanku hareeraha taagan yihiin amnigoodna waa ku filannahay amnigiina waa ku filannahay cadow inay hawaysan karaayana ma jiro haddii Ilaahay ka dhigo waxaan uga digaynaa dadka reer Puntland ee danaha yaryar mararka qaarkood ku indha sarcaadaya haddaa istiraahdaan waxba mararka qaarkood waxa maqla kuwa dhahay anagu waxba yeelimayna lacag baas ka guranayna lacag suna haddaa guratid dadkaaga ay ka go'an tahay ogaada arrintaas arrin in lagu kasoomo ma aha arrin dib loo fiiriyo way waxaynu u baahannahay midnimadeena in adkayno waxaynu u baahannahay dariiqii awoowayaasheen inaan ku taagnaano midnimada Soomaaliyeed aan dhiig iyo dheecaan u shubno Soomaali midnimadeeda aan ka shaqeyno Muqdisho waa caasimadii Soomaaliya marna ma ogolaanayna kala talisinimo dambe inuu ku soo noqdo dadka reer Muqdisho waxaan u ballan qaadaynaa garab iyo gaashaan inaan u nahay in dalkan uu noqdo dal dimuqraadi ah dal sharcigu ka shaqeeyo dad dastuurka ixtiraama dad nidaamka federaaliga ah ku dhaqma Puntland marna ka tanaasuli mayso nidaamka federaaliga ah marna yeeli mayso dad siyaasadaysan inay ciidan siyaasad u adeegsadaan waxaan insha Allah ballan qaadaynaa oo cod dheer ku oranaynaa in ciidamada Puntland ay heegan u yihiin difaaca amniga waa ogtihiin wixii calmiskaadii ciidamadu ka dhigeen waad garan karaysaan shuhadadii iyo saraakiishii iyo dadkii qiimaha lahaa ee nooga dhintay dhiiggaas waxaan ku raadinaynaa xorriyad waxaynu ku raadinaynaa inay gabdhaheenna iyo wiilasheenna ay farxaan waxaan ku raadinaynaa inay ku damaashaadaan quruxda Puntland marna ma aqbalayno mid waxyeeleeya bilicda Puntland bilicda Garowe bilicda Gaalkacyo bilicda Baran bilicda Boosaaso bilicda Carmo iyo dhammaan geeyiga Puntland cid aan ka aqbalayno inay waxyeelayso ma jirayso waxaan ka xumahay in Xamse maalin dhaweyd hadallo uu ku hadlay waxaan aad u jeclaa odaygii hadalka u soo dhiibay inuu sidaas yiraahdo hadalkaas ninka u soo dhiibay waan garanaynaa reer Puntland cuqdad ma qabto waxay rabtana ma sheegi kari waayeen waxaan qabno way cad yihiin dawladnimada dantaan ka leenahay way caddahay aragtideena siyaasadeed way caddahay cidda cuqdada iyo Soomaali nacaybka ku jirto dadku wuu yaqaanaa ninka dadkiisii dilaayay oo madaxdiisii dilaayay oo ismadiisii ku hogaaminaya droonka ninkaas aan filayaa inuu cuqdadaysan yahay Soomaalina uu cuqdadaysan reer Puntland
reer puntland cuqdad laguma yaqaano waa dadkii xorriyadda iyo halganka waa dadkii soomaalinimada ku sifoobay wayna ku sii sifoobi doonaan haddii ilaahay arrintaas waxaan rabnaa inay dhegta u dheeraariciyaan jiilka soo gelaya midnimada iyo wadajirka soomaali iyo ka shaqaynteeda waa arrin aasaasi u ah jiritaanka iyo dhismaha puntland iyo kan soomaaliyeed waxaan rabaa arrintaas inaad mar walba dhegta u haysaan maanta waa maalin farxadeed laakiin farxaddii waxaa naga qasay nimanka raba inay soomaali baabi'iyaan oo haddana inay gidaarada been ka sheegaan dadka raba waxaan rabaa dadka xasan sheekh madaxweynihii hore iyo wiilkiisa uu hadba hadalka u soo dhiibaayo iyo dadka daaha gadaashiisa ku jira intaba inay bannaanka soo dhigaan waxa weeye dalkan sharci buu ku socon doonaa ilaahay idankiisa dawladnimada soomaaliyana waa loo siman yahay mid xoog lagu haysan karana maaha hortaajire waa waxaan leenahay arrintaas ha ku kadsoomin talada dhexda soo dhig dalka soomaaliyeed insha u baxaysa ha burburin waxaan rabaa inaan uga digo dadka reer puntland degaan kasta ay joogaan oo ku fakaraya inay puntland wax yeeleeyaan cidna wax ma yeelaynaysaan idinkaa wax isyeelaya dadkiinna wax u dhimanina puntland waad ogtiin waa dad dimuqraadiya dad laisjujuubo ma aha xukunka xoog laguma yimaado waynu garanaynaayo waa meel furan ninkii xukun raba ama siyaasad raba yuusan shilimaan ninka soo qaadin oo dhihin buulkaygaan gubaaya dalkan bannaanka ha soo yimaado ra'yigiisa ha dhiibto waxaan rabaa dadka reer puntland gudo iyo dibadba walwalka maalmahan iyo hadallada xunxun ee baraha bulshada la marinayo waa kuwo la qorsheeyo oo la rabo in lagu kiciyo damiirkiinna waxaasi waa been puntland nabadgelyadeeda way sugan tahay ciidamadu waa ku filan yihiin cid laga yeelayo inay dhaqdhaqaaq ku samayso inay amnigeeda ku xadgudbaa ma jirto taasna waxaa ku filan shacabkeeda iyo dawladdeeda u igmadeen waxaan rabaa inaan inii sheego dawladdiinna ku kalsoonaada waxay ku soconaysaa rabitaankiinna waxaan inii sheegayaa midnimada soomaaliyeed waxay naga tahay dhab waxaan mar walba ka shaqaynaynaa soomaali siday u midoobi lahayd waddo kastoo wanaagsan waan u maraynaa ciddii xumaan ka shaqaysana hadde waa la xisaabtamaynaa haddii ilaah idan ka dhigo marka waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed inay midnimadooda adkaystaan xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay wixii aad ku xadli jirta waa taqaannaa calaacalkaagii waa duuban yahay puntland waa tii kuu soo gurmatay markaa calaacalaysay waa tii godka kaa soo saartay ha ku kadsoomin xamarna cid kama lihid soomaaliyana laguguma aamini karo waana kaa qabanaynaa ilaahay idankiisa wasalaamu calaykum waraxmatullahi geesta kale magaalada muqdisho maanta dhoolatus culus ayaa ka dhacay kooda luuliyo munaasabad loogu dabaaldegaya ayaa dhacday waxaa sidoo kale munaasabadaasi dadka ka hadlay ka mid a wariyaashu ay wareysteen cali xoosh iyo sidoo kale asadiyaano ciidanka puntland la geeyey ayay ka hadleen waxaana ay sheegeen in dawladdu ay xaq u leedahay inay deegaanadaasi ciidamo geyso ciidamadu xaq bay u leeyihiin la qoro ciidan soomaaliyeed way meel joogaan innagoo dhan wax weyn bay inoo ka dhigan tahay maalin qiimo badan oo taariikhaysan oo 66 sano jirsatay oo halkan soo madhay 70 sano gumaysla dagaal ah oo lagu guulaystay xorriyaddeediina maanta aynu u joogno sanado badanna hadda soo muxuu ahaa ku noolayn rajaynaynana inaan iyadoo intaa ka qurux badan oo ka waaweyn oo ka dareen badan oo ka qiimo badan inaynu arki doono wixii nool haddana waxay maraysaa meel wanaagsan oo qurux badan oo aad arkaysaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba dareenka ay qabaan iyo qalbi wanaagga ay u hayaan iyo qiimaha ay maalintaan u leedahay marka waa uga mahad celinaynaa
aad iyo aad dhallinyaradu inay dariiqyada iskugu soo baxaan oo maalintaas u noqoto maalinta qiimaha badan leh oo xalay aan arkayna iyo maalmahan oo dhan dhallinyarada dhiigga cusub inay xornimadu qiimaha ay leedahay dareesan yihiin damaashaad iyo farxadna ku jiraan aad iyo aad bay ugu muxuu ahaa ugu bogaadinaynaa maadaama gudoomiyaha guddiga aad tahay waxay ugu duwan tahay sanadkii hore dareenku waa sidii laakiin dabaaldegaya kala weyn wax tiro badan baa la soo bandhigayaa waxaa la soo bandhigayaa sida aad arki doontaan ciidamada kala duwan qaybihiisa kala duwan oo intii hore ka tiro badan wasaaradaha oo iyaguna muxuu ahaa ka qaybgeli doona ururada bulshada oo ka qaybgeli doona diyaarado ka qaybgeli doona fardaha waad aragtaan waa ballaaran tahay aad iyo aad bay u ballaaran tahay waxaa la sheegay in maraakiib ay ka qaybgeli doonaan dowladba maraakiib ay soo iibisay doonyaha ciidanka badda ka qaybgelaya iyo wax soo saarka kalluumaysiga iyo iyagoo doonyada wasiirkooda luuliga waa midooda labada gobol ee koonfur iyo waqooyi maamulka puntland madaxweynahooda hadle wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya halis ku jirto duulaan lagu yahay arrintaas ka waran maadaama puntland hada war xun nin sheegay warkiisa lama xigto soomaaliya midnimadeeda halis cid gelin ka dhalamaan adigaa ka mid intiinaan baa ka mid dareenkiina soomaaliya inay kala qalqalloocato ama dareen kala galo miyaa raalli ka tihiin nin muxuu ahaa siyaasiya dhamaciisa ma soomaali buu muxuu ahaa kala goyn karaa ama midnimadeedu mugdi gelin karaa ma jidha hadeer taas waxaa ka weyn waxay tahay iyo xaqiiqadaa ka weyn ciidamo ayaa la sheegaya in halkaas laga qorayo dadka qoraya qaybina arrintaa ciidamadu xaq bay u leeyihiin la qoro ciidan soomaaliyeed wey meelay joogaan haye waa mahadsantihiin madaxweynaha Soomaaliya maanta dhoolatuskii ugu weynaa ayuu sameeyay fagaaraha taalada daljirka daasan waxaa ka dhacday munaasabad lagu dabaaldegayo kooda luuliyo waxaana ka soo qayb galay boqolaal shacab ah iyadoo sidoo kale tana safiiradii beesha caalamka ay maanta u shideen madaxweyne xasan sheekh munaasabada kooda luuliyo taasi oo ay raacdo wacdarihii uu xalay uu ka dhigay markaasi taleex halkaasi oo boqolaal shacab uu kula dabaaldegay arrintan oo wajigabax ku noqotay xogaga mucaaradka gudaana wararkeena waa nagita nabadgelyo